waxaa isi soo taraya cabashooyinka ka imanaya deegaanka dacar buruq ee ku saabsan saamaynta iyo waxyeelada wakhtigan ay keenayso warshadda saamaha iyo hargaha ee deegaanka dacar buruq dhowaan ayuunbay ahayd markii tiifiga caalamiga ee star uu baahiyey cabashooyin iyo warar ka hadlaya dadka deegaanadaasi dacar buruq oo wakhtigan cod dheer ku sheegaya inay warshaddaasi hargaha iyo saamuhu ay kala kulmeen hadhaaga wasakhda iyo sunta kimikalka ah ee lagu isticmaalo warshadaasi waxyaabaha ugu la yaabka badan waxa kamid ah inaan xanuuno dadka qalalinaya oo amba afku baa qalocsamaya amba waxa ku dhacaya xagga neerfaha oo xanuun baa ku dhacaya xagga laabta inaan caruuraha waxa la arkaya marka ay dhashaan ayagoo madaxu bararay dumar ayaa umulay caruur aan madaxba lahayn waxyaabaha soo dhan anagu ma garanayno waxaan u aanayna inay yihiin warshadan aqoon ma lihin markii warshadan ay meesha timi waxa noo sheegay waxaan ugu waxa idin sameynaysaa waxyaabo macluumaad leh shandadaha maxaan ku idhahdaa kabaha maanaan garanayn madaxweynaha waxaanu baaq u diraynaa jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo sida ugu dhaqsaha badan leh inuu guddi xogagaala noogu soo diro oo caafimaad oo waxa naga eegta wasaaradda deegaanka wasaaradda caafimaadka wasaaradaha ku shaqada leh xaaladaha caafimaadka way dhici weyday wixii waxa noqdeen wax in lagu sameeyo waxaan hargaayo waxaan lagu shaqeeyo jayno chemical inay yihiin halisa cidii ku ugu horeysay ee maxaa dhacday ku waxyeelowday imika sawirka faylka aan ku hayo iyo waraaqaha inanka ayaa kamid ah inama oo ara inankaygi waxaanu ahaa inan iska ka soo baxay iskuulka dhexe waa ka sida sawqo waa ka biyo dhaashan ku jira dooxeedii waxa warshadahaas ayaa naga sunayaanu ka dhaasan jiray dhabarkaanu ka dhaasan jiray qasabad waxaan ugu jiray qasabado biyo magaalada noogu yiman jireen beebeen noo jiifay inta warshadaasi maadaama biyo naga soo biyo la'aan haraad waxaan ku yiri maxaan ku raayay xagga dhakhtarkoon ku caawino aan dhakhtar noo dhisnayn waxyaabo fara badan oo dhibaato ayaa ma haysta waxaan nahay dad ka shaqeey jiray China kuna dhaawacmay xaq iyo xaquuqdooda ku waayay waxaan ka shaqeyn jiray qaybta sunta shaqaalaha soo fara badnaa aan cid islaami wax u qaban wax daryeela caafimaad meel aan lagi ilaa imikana suntoodii waa taanayso waa noo aragtaan haddaba maanta ayaa maxkamadda racfaanka ee Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex waxa ay si rasmi ah u sheegtay gebi ahaanba warshadaasi hargaha iyo saamaha la xayiray isla markaana la joojiyay shaqadii ay ka waday dalka Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Soomaaliland Cali Suudi Cabdi oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inay cabasho xoog lii ka soo gaadhay dadka deegaankaasi dacar buruq sida daraadeedna la xayiray hargaha iyo saamaha ee degmada dacar buruq maxkamadda racfaanka waxa soo gaaray markii ugu horeysay codsigu soo qoray garyaqaanka guud oo ku taariikhaysan 15 bishii labaad ee 2016 laguna codsanayo in la xayiro halka ay warshadu ahaan jirtay warshadaas hargaha ee ninka shiinuhu leeyahay codsiga markay maxkamadda racfaanku heshay garyaqaanka guud sidoo kale maxkamadda racfaanku ay aragtay warbixinta uu soo qoray gudoomiyaha duqa degmada ee Laasgeel oo ku sheegay in halka ay waxyeelo fara badan ay ka jirto waxyeelo deegaan iyo waxyeelo dad iyo shaqaale fara badan ay wax ku noqdeen dhibaato fara badan oo deegaanka saameynaysa ay ka jirto halka maxkamadda racfaanku markaa iyadoo tixgelinaysa codsiga garyaqaanka guud iyo cabashada ka timid duqa degmada ee Laasgeel isla mar ahaantaana tixgelinaysa muwaadiniinta ku wax noqday warshada maxkamadda racfaanka gobolka Maroodi Jeex isla mar ahaanta waxay soo saartay xayiraada ku taariikhaysan 15 bishii labaad ee 2016 laguna xayiray warshadaas hargaha si loo hubiyo waxyeelada sunta ee la sheegay inay jirto iyo inaanay jirin darteed ay maxkamadda racfaanku xayirtay isla mar ahaantaana maanta xafiiskayga waxay ugu yimid ilaa 35 qof oo ah deegaanka degmada Laasgeel ka yimi oo qaarkood ay nabarro qabaan oo qaarkood ay cabanayaan oo intooda badan ay cabanayso ay ka cabanayaan sunta ay ku waxyeeloobeen isla mar ahaantaana dacwadoodii ay ka furanayaan maxkamadda gobolka Maroodi Jeex qareena ay qabsanayaan taana maxkamaddu
iminka ka hadli mayso waayo waa dacwad socota. waxaanu gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Soomaaliland Cali Suudi Cabdi uu sheegay inay waqtigan xafiiska yimaadeen buuri 35 dacwadood oo ay wadaan dadka deegaanka degmadaasi Dacarburuq warshada hargaha iyo saamaha ee degmada Dacarburuq oo waqtigan ay leeyihiin dad u dhashay Shiinaha isla markaana ay ka hirgeliyeen duleedka deegaankaasi Dacarburuq warshada hargaha iyo saamaha saahaatee ilaa waqtigii la hirgeliyay ilaa maanta waxa soo baxaya cabashooyinka soo taraya ee ka imanaya dadka deegaanadaasi.